daahir xasan aadan waa aabe ku nool Hargeysa. waxa uu ka yimi magaalada Burco isagoo waliba deegaano ka tirsan kuwa Soomaalida u maray baadidoonka ugu jiro xaaskiisa Qadan Xuseen oo u dhashay 4 caruura. Qadan ayuu sheegay inuu daahir ku dhex waayay caasimadda Hargeysa xilligaas oo sheegay inuu xaalad caafimaad u keenay magaalada Hargeysa. waxa uu sheegay in Qadan da'deedu ahayd 30 sano jir isla markaasina ay dhashay 4 caruura oo 2 ka mid ah isagu aabbo u yahay. waxa uu sheegay inay Qadan qabtay xanuunka dhimirka. murugo iyo diif badan ayuu sheegay inay daahir ku reebtay arinta Qadan oo uu sheegay inuu aad uga warwarsan yahay xaaladeeda caafimaad iyo halka ay ku dambeysay raq iyo ruuxba. Hargeysa ayaan saaka ku kulanay Daahir Xasan Aadan waxa uuna si murugo leh iga warramay isagoo indhihiisa ka muuqatay ilinta ay ka reebtay arintan xanuunka badan ee ah inuu xaaskiisa baadi doonayo muddo hadda ku siman sanad. aniga iyo Daahir waxaana dhex martay sheekadan. habeenada ka mid ah ayaan ka soo qaaday ninkii biyaha ku rushayn jiray dadka ee halkaa wuxuu igu yiri wax uma hayo anigu dawo ee iga qaad waan ka soo qaaday habeenkii waxaan keenay guri jigjiga yara anigu ma habeenka waxaan ku yiri ciidan ma yihi waan iska seexanayaa 8 habeen ayaan gaarayay ilaaliya gabadha dabeed 12 markii ay ahayd baa la toosiyay gabadhii laba haya baa la gurigi baan ku kacnay guri weyn buu ahaa waanu baadnay daaqad baanu helay ay bir ka jirisay oo laabtay bir yar halka laba barkibo qaacay bay dhigtay dabeedna way kortay halkaas ka dustay sida ay halka uga baxday wax wara oo dambe kama hayo habeenkii meel walba waa maray baayidoonkeeda aad baan u baayidoon tagay halka hadii alla ka dhigay ilaa loo yacdaan socday xeebta oo dhan waa maray ilaa berbera qariga waan uga baxay ilaa xiisiga mayd baa socday kilka shanaad waan soo dhameeyay imika waxa igu daran caruurtii muddada ay maqan tahay imika marka iyadu miyay xanuunsanaysay mise waa caro family-ga ka timid ma xanuun baa watay oo riyanay adiga aad xanuunsanaysay bacdada aan gasheen adigoo la kala noqonaya muddo hadda inta lag bay maqantay sanad bay ku dhawaa sanad baa bisha ayna soo galaysaa yumba 7 habeen markaa ka harsanay da'deedu ilaa 30 ilaa 30 meelaha imsa caruur ku 4 caruur ayay leedahay laba aniga ay dhashay labana nin kale u dhashay 4 caruur taabay leedahay 4 sibada gacanta iyo reerkoodii magacayga dhammaystiran Qadan Xuseen Axmed Geedi bal tilmaamta guud ee sawirkeeda adigoo gabadh dhuuban oo aan aad u dheerayn ayay ahayd sanka waa dhuuban tahay halka kama sir bay ku leedahay ilkaha way cascas tahay ilkaha casaan timaheeda mar baa laga gaabshay xanuunka aawadii aad uma dheerayn shacbiga Soomaaliland iyo xukuumadda hadda xilka haysta fariinta u dirayso hay'adda fariintaan u dirayaa waxay tahay wixii caawimaha iga caawin karaan inay iga caawiyaan baan u dirayaa wax kale aan u dirayaa ma garanayo lambarkaaga balnoo yeeri lambarkaygu waa 435 89 47 magacaaga dhammaystiran Daahir Xasan Aadan Ismaaciil Aabba Daahir Xasan Aadan ayaa ka codsaday ummadda Islaamka inay soo caawiyaan ama bal raadiyaan xaaskiisa xalaasha ahayd ee Qadan Xuseen Axmed oo uu sheegay inuu hadda baadi doonayo balmeedkeeda ama nolosheeda. Sakariya Sudeesi, Telefishinka Ariel, Hargeysa.